daawadanayo ama dhegeysanayo waa mar kale iyo barnaamijkeeni la yaabka dunida. Maanta barnaamijkan wuxuu dul taagan yahay qaaradda Aasiya, dal ka mid ah dalka Myanmar. Qofka markii uu dhinto, qalfoofta meydkiisa lama duugo muddo 3 maalmood ah, ayagoo sheegaan in qofka laga yaabo inuu soo noolaado. Si loo xaqiijiyo waa in 3 maalmood ay ku hayaan qofka meydkiisa guriga. meedka intuu gurigu yaalo, dadkaas way ku xoolo qashtaan, way ku wax karsadaan, way ku baroor diiqdaan, way isugu soo wacdaan taasida qofka. muddo 3 maalmood kadib ayaa qofka la duugaa meedkiisa. waa cajiib. qisadan runtii markaan arkay ama maqlay waxaa igu soo dhacday dalka Ethiopia. dad qoomiyad kamid ee degtay cawaanta ah, markii uu neefka lo'da ka baqtiyo ma duugaan, guriga iridkiisa ayaa dhigaa muddo 3 maalmood, ayagoo sheega laga yaabo in neefka mar uu soo noolaado. haddii kadib 3 maalmood wax isbedel laga arki waayo kadib ayaa la siiyaa waraaba.